xaaladda abaaraha ee gobolada bari ayaa ah mid aan la dhayalsan karin. Abaarahan sababay diifta iyo tabaalada xoolo dhaqatada, leeshada xoolo tiro badan, warwarka xilli ay soo afjarmi doonto. Rabbi haynaga kor qaade iyo dhulkii oo xaalufay, dabaylaha gabadanada iyo dhaxanta xoolo dhaqatada haysata ee aan meel ay dugsadaan jirin dhulka banaka ah, waqtiga xoolaha iyo nafaqa darnaanta reer guuraaga oo saameynteeda leh iyo quudarnaanta ayaa intuba saameyntooda xoogga lihi ay laga maarmaan tahay gurmad xooggan oo isdaba jooga oo lala gaaro sida ay u kala daran yihiin xag raashin, biyo iyo caafimaadba. waxaanu marnay deegaamo badan oo ka mid ah degmada Ceerigaabo, socodka safarka lugtayada xogta xaaladda abaaraha xaqiiqadeeda iyadoo deegaanadaasi waqtiga xoolaha aad si isdaba jooga ugu arkayso dhulka reer guuraaga. degmada Goof ayaa iyaduna la mid ah, waxaana deegaanada degmooyinkan ka mid ah deegaanada Masagan, Dibqarax, Dhaban, Soolgariyo oo u dhaxeeya degmooyinka Goof iyo Fiqi Fuliye, deegaanka Arda ilaa iyo Banka Xadeed ilaa laga gaarayo degmada Fiqi Fuliye ee gobolka Sanaag. kasakow xoolaha leeday ee aad ku arkayso deegaanada abaartu iyo ururto xaalufka deegaanada buska iyo boodhka aragtidiisa waxa dheer xoolo dhaqatada jahawareersan ee hayaanka ah iyo xogta xaaladooda aan fiicnayn ee ay ka waramayaan. wixii xagga kana oo sida hadeerna ka xiga xoolaha wax yar baa fara lagaga haya, wax yar wuxuna wax tiqaale maaha oo si noolaanaya. marka wixii waxa lala soo cararona gaariga marka saa lagu dajiyaan bay wada baqtiyaan. hadda shalayto anigu halkaas wax soo mariyay, wax baan soo saaray 10 baan jidka kaga tuuray, 5 kalena waxaan kaga tuuray xagga haddii alla badankeeda leeyahay xoolo markaa sidaas isaga waxaysan yihiin gel iyo ari. maanta waxa weey dhulka jiifa. dhibaatada ugu daran ay idin haysataa maxay tahay? dhibaatada ugu daran waxa weey dadkiiba wuxuu maqtuuto ma haystoba. xoolihii markii macnaha ay sidaa noqdeen oo kuwa haddii alla badankeeda ay eegayseen iyo kuwa la mid ah ay noqdeen, xoolihii waxa weeyaan dadkii iyo xoolihii dadkiiba bahdelid. waxaad nooga warantaa in waan arkanaa inaad hayaan tihiin oo waliba reerka qoys kale oo reer guuraayo idinku horeeya hayaan yihiin, qaar kale idinka dambeeyaan waxa filaya inay kuwaasna hayaan yihiin. taas daba joogto oo dhan dilinta halkeed ka soo hayaanteen? waxaan ku soo hayaa qaadnaa anagu meesha la yiraahdo dawaco. haye dadkii maatadiina waanu ka nimid oo dhul haraada baanu kaga nimid. xoolaana wixii xayeeshka ahaa baabuur baanu ku daabulay oo intan u baadey waxa dheer tukurina qaybina hareeyay. hadda dhul la lahaa iflay baana ku kala naqaanay baa reerigii qaybtood. qaybtana hadda beelaan ku furro walaana ku warno waxa la leeyahay beelaan waxa weeyaa isku keentaan balama hayo. marka niyo wanaga qulada ma dhibto wana la qabaa umada oo bedel dhibto haysataa, ninkii hayaaba dhibto haysa laakiin se jaawareer baad ku dhacay. ilaahay baday wax laga sugayay. marka hadda waxa weeyaan anagu marka waxa weey ilaahay baday wax lagu sugayay u nool umada iyo dunyada. dadkuna waa istaba joogaas oo xiriir hadeer muddo ilaa 5 casho ilaa 4 casho geedi baa lagu jiray. awal markii hore baabuurta istaba joogto 2 casho soconaysay. hadda raadiyaha waxay soconayaan, qaar baa waxay soo dhaxayaan 4 5 3 qaybayn bay dhaxaysaa. wixii baabuurta la saaray maayo wixii kale. haye xoolihiina waxna waa bixeen, waxna wax laga cuno waa laga waayay. haye waxay ahayd wanaga halka ka joogna oo gaadiidkii waa laga bixeen, dabari waa naga bixeen, awrtii waa naga baxday, waxaan ku guuray wanaga halka tuba. marka inta qoysaskiinan xoolaha wixii u soo hadhay xigi jiraan waaska soolashaas iska joogjoogan, waxna waa tageen oo waa hayaameen. haye marka ilaahay baa gargaar bixiya. marka gargaar aadana iyo gargaar ilaahay baa noo baahnaa. gaadiidkana waa naga baxay, halkaasaanu ka joognaa. waad aragtaa deegaan ahaan ma ilaahay baana qoysaska reer guuraaga deegaankan degan baa tihiin mise markii hore deegaano kale ka soo guurteen? anagu deegaanada areadan degan baanu nahay. qof fuliyaagisana baanu nahay. marka sidaa weeye. ceelkan aanu taagannahay waxa la yiraahdaa ceelka Goof, waana ceelka loogu magac daray degmadani.
oday ka mid ah odayaasha deegaankan isla markaasina ka warqaba dadka sida u saameysay iyo dunyadaba gaar ahaan xoolo dhaqatada iyo dunyadooda abaartu hadday biyaha tahay iyo haddii ay baadka tahay iyo haddii ay deegaanka tahay iyo haddii ay dhinaca cuntadaba tahayba ayaa nooga xog warramay ilaa ceergaabo kolle intaan ka warhayo ilaa halkaa iyo meesha la yiraahdo dhahar inta u dhaxaysa nawaaxiga u dhaxaysa abaarteeda ama dayradeedu waa isgaadhay marka hadda waxaanu joognaa ceelka la yiraahdo goof wuxuu ku yaalaa dhul daaqeenkii dhinacan galbeedka soolka baa ka xiga la yiraahdo sool gariyo dhinaca bariga waxa ka xiga dhulka la yiraahdo sool dooni baa ka xiga dhinaca sare ee marka waqooyi loo kaco waxa ka xiga meesha la yiraahdo qaari dhinaca hoose ee koonfurta marka loo sii kaco waxa ka xiga togagalada isku daramo ilaa gelisle iyo ceel qoxle ilaa gojaxo ilaa nawaaxiga xadeed ee soka intaas u fadhiya waad aragtaan maanta neef xoolahay ma joogo ka cayman maayo golgofaha nugusha ku baktiday ee markii ay taal darro uga socon weyda hareeraheeda taalla waad aragteen maxamed xuseen cali iyo cabdiqurbaani warbaahinta qaranka iyo xogta xaaladda abaaraha